السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داوداش ugu taxan meel walba caalamka joogtaan iyo si walba aad noo daabanaysaan. Galab wacan ayaan hawadeeda ka leenahay meel walba caalamka joogtaan waa galabnimo sabti ah. taariikhduna ay ku beegan tahay 13 bisha 7 July sanadkuna waa 2019 waa maalin markaasi Soomaalida meel walba caalamka joogto ay tahay maalin murugo ah oo maalin markaasi dad nolosheena aad ugu weyn qiimana ku leh ay naga baxeen marka hore waxaan leeyahay dhammaan shacabweynaha reer Kismaayo iyo shacabweynaha Soomaaliyeed meel walba caalamka joogaan marka hore waan ka tacsiyeenaa geeridii naxdinta lahayd ku timaaday dadkii halkaasi ku jira oo hotelka Casaasay oo ay kooxda Al-Shabaab ay mas'uuliyadeeda sheegatay marka hore waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun وهذا guud ahaan barnaamijkeena maanta waxaan diiradda ku saari doonaa waa weerarada markaasi aad ku xanuunka badnaa lagu qaaday hotel X Medina oo ah hotelada ugu caansan ee magaalada Kismaayo waxaana kooxda Al-Shabaab rag lagu sheegay 4 in ay galeen hotelka kadibna halkaasi ay ku laayeen dad shacaba wariyaal xildhibaano dad markaasi u taagnaa xilalka madaxtinimada doorashada Jubbaland sidoo kale madaxweynaha Jubbaland oo bartiisa Facebook-ga qoraal soo dhigay ayaa waxa uu sheegay in ku dhawaad 26 qof oo iskugu jira shacab wariyaal iyo sidoo kale dad madaxa ay ku dhinteen hotelkaasi waxa uu sidoo kale uga tacsiyay dhamaan eheladii qaraabadii iyo sidoo kale asxaabtii eheladooda ku waayay weerarkaasi xanuunka badan ee kooxda Al-Shabaab ay mas'uuliyadeeda ay sheegatay وهذا guud ahaan barnaamijkeena maanta waxaan diiradda ku saari doonaa isla arrimahaasi waxaan rabaa in aan daawadayaasheena la soo wadaago ama la wadaagno warbixintii ugu dambeysay ama wareysigii ugu dambeeyay markaasi laga qaaday Allah u naxariistay Hodan Naaleya oo ahayd gabar saxafiyad haystana dhalashada dalka Canada waxayna markaasi ay nafteeda ay ku waasay weerarka wixishimada ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen hotelkaasi sidoo kale waxa la sheegay dadka dhintay inuu ku jiray ninkeeda masaygeeda Farid Jamac waasagana markaasi gacan ka xaq daran ku baxay hadaba inta badan waxa laga yaabaa bulshadeenu in aysan isweydiinayaan maadaama dad badan meesha ay ku dhinteen way ay markaasi saxaafada ama dadku ay u hadalhayaan Hodan Naaleya runtii horta qofka markuu wanaag uu bulshada uu ku dhaxleeyahay magac uu ku leeyahay uu sharaf ku leeyahay inta badan ba qof waliba ayaa xusaya Hodan Naaleya waxay gabar Soomaaliyeed inkastoo ay haysto dhalashada dalka Canada hadana waxay ahayd gabar markaasi jecel dhulkeeda hooyo waa gabar markaasi inta badan ba ku fikir jirtay mar walba ay speech bixiso ama meel ay ka hadasho in ay u cabsanayso caruurteeda maadaama iyadu ay luqadda Soomaaliga hadda si wanaagsan u baratay inkastoo aysan garanayn waxay sheegtay inay markaasi ku fikirayso caruurteeda sida markaasi dhaqanka wanaagsan dhaqanka Soomaalida diinta Islaamka ay ku barbaarin lahayd sidoo kale Hodan Naaleya waxay markaasi ahayd aasaasaha telefishinka Integration oo markaasi xitaa magaca guud ee telefishinka u bixisay waa isdhaxgalka bulshada waa dareemi kartaa inta badan ba dadka YouTuberada magacadooda waxay u bixiyaan YouTuberada magaca ay ka leeyihiin ama magac markaasi hadday noqon lahayd magaalo ay ka soo jeedaan laakiin Hodan Naaleya waa gabar markaasi magac ku leh caalamka haddii aan runta fiirino markaad fiiriso dhanka Facebook-ga shirkadda Facebook-ga way aqbashay verified wax loo calaamad guud dambeysay oo marka Twitter sidoo kale waa dareemi kartaa marka waa qof magac sidaas u leh waxa ay hadaladeeda kamid aha in markaasi bulshada ama telefishinada caalamka inta badan ba ay u soo gudbiyaan ama sawir xun oo khaldan ay ka gudbiyaan Soomaalida ama wadanka Soomaaliya waxay sheegtay si taasi loo bedelo waxay bilaadeen mashruuc ama barnaamijka telefishinka iyadoo asaastay oo markaasi ugu macdartay isdhaxgalka ama Integration TV kaas oo ujeedkiisu yahay in caalamka ama dadka markaasi qurbaha joogo laga dhaadhiciyo la tuso quruxda uu leeyahay wadanka quruxda uu leeyahay mulgoboleedada quruxda ay leeyihiin dhulkeena hooyo maadaama inta badan ba dadka qurbaha ka yimaada waxay dalxiis u tagaan wadamada kale haday noqon lahayd qaar ay Dubai tagaan qaar Nairobi tagaan teeda kale Hodan Naaleya waxay ahayd hooyo markaasi caruur leh waxay ahayd qof markaasi sidoo kale sheegatay inay diyaar u tahay una soo jeetay inay barato diinta suuban waa hadalada markaasi iyada laga hayo waana dareemi kartaa qof markaasi qurbaha ku soo koray ayadoo yar qurbaha tagtay 1976 ay dhalatay 1984 waxay gashay dalka Canada halkaasi waxbarasho ka bilowday
haddana waxay markaasi waqtigeeda dhanba gelisay in ay safaro kala duwan ay ku bixiso Soomaaliya oo markii ugu dambeysay ay joogto Kismaayo inta badanna waxay qabato ma aha kaliya in bulshada ay iska gado laakiin waa in bulshada caalamka sawir khaldan markaasi naga fahansan in aan tusno in wadankeenu uu yahay wadan markaasi nabad ah inuu yahay wadan markaasi barwaaqo ah inuu yahay wadan markaasi la maalgashan karo naale sidoo kale waxay ahayd gabar markaasi wariye ah sida ay sheegtay Kismaayo dhowr gabdhood ay waxay bartay ama ay bareysayba koosaska markaasi saxaafada sida loo isticmaalo kamerada qaabka loo sameeyo codka loo jaro marka waa dareemi kartaa sidoo kale waa gabar bulshada dib ugu soo laabatay in ay markaasi caawiso inta badan waxaan ognahay qof waliba markaasi bulshada wanaag u hayo in bulshadu aysan jecleen waxaana markaasi ay ku baxday gacan ka xaq daran waxaana leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun horto taariikhda lama soo koobi karo waa gabar aqoon leh heer jaamacadeed meel wanaagsan gaartay waa gabar markaasi dalka maanta la dhigi kara wax bay u tartay hodannaale Allah u naxariistay waxay sameeynaysaa wax markaasi bulshada ay wax ugu tiraysay waa wax markaasi wadamada caalamka ee sawir khaldan ka haysto Soomaaliya ama Soomaalidu ee markaasi dheesay bal sidan ma aha Soomaalida lagu sheegay dhaqankoodu waa sidan qaabkoodu waa sidan wadankii waa nabad marka waa dareemi kartaa qof juhdigaasi galiyay ugu dambeynna kulay gacan ku xaq daran ay ku baxday waxaana leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhamaan caruurta ka tagtay ehelada asxaabteeda waana ka tacsiinina sidoo kale waxyaabaha markaasi ku dhiirigeliyay oo wareysigeeda kamid ah waxay tahay in inta badanba TV-yadu ama bulshada meelaha ay ku kulanto maraha bulshada in mar waliba xumaanta Soomaaliya la hayo Soomaaliya qarax baa ka dhacay Soomaaliya intan baa ku dhimatay Soomaaliya waa sidan marka waxay tiri waxa la waayay dad markaasi bulshada kale u soo bandhigo wanaag ay leedahay sababta wax walbana wanaag uu leeyahay xumaan uu leeyahay laakiin haddii noqoto in kaliya xumaanta hal meel laga fiiro waa sababta markaasi bulshada caalamka ay noo arkaan dad markaasi argixisa inay noo arkaan dad markaasi wadankooda soo burburay ama dad noo ark in aan ahnay dad markaasi dhibaato u geena bulshada kale waa dareemi kartaa markii madaxweyne dalka Mareykanka Donald Trump waxay raad saaray wadamada wadan ku dar Soomaaliyeed sababta ugu darana waa in markaasi uu leeyahay Soomaalidu maadaama wadankooda dhibaato ka jiro maadaama ay dadka inta badan ba qaraxyada wadankooda ku dhaco hadana laga yaabo in dadku soo dhaxduntaan laakiin waxaan ognahay weerarada inta badan ba ka dhaca caalamka ama ka dhaca Mareykanka ama meelaha kale in dadka geystay yihiin dad markaasi wadamadaas u dhashay aysan ahayn wadan markaasi dad Soomaali dhashay hadaba sidaas ay u bilaaday barnaamijka TV-ga integration ama isdhaxgal oo markaasi bulshada sidoo kale waxay caawiyo dadka caawinaysay hooyooyinka caawinaysay bulshada xanuunsan bay caawinaysay dadka dhibaatsan caawinaysay sidoo kale waxay dad markaa gabar suuq geyn ah oo dadka markaasi Soomaali badan ay suuq geyn u sameeyay ama ganacsi ama waxa loo yaqaan advertisement oo markaasi bulshada markaasi wadamada kale ay u soo bandhigaysay marka waa dareemi kartaa waa gabar markaasi qiimo weyn ku leh bulshada Soomaaliyeed balse maanta gacan ka xaq daran ay ku baxday waana naga dhimatay kaliya reerkooda kama dhimanin waxay ka dhimatay Soomaali oo dhan bay ka dhimatay Muslim oo dhan bay ka dhimatay qof waliba maanta maqla waxa dareemaysaa in xanuun gooni ah ay ku leedahay sababta maanta qof waliba markaad Facebook gasho markaad gasho Instagram markaad gasho baraha bulshada Twitterka waxa la hadalhayo waa geeridii hodannaale annaga ognahay in ku dhawaad dad kor u dhaafay 26 qof ay ku dhinteen hadana waa isweydiin kartaa qof aqli lahaatay waa maxay sababta hodannaale kaliya dadka dhintay ama dadkaasi dhintay loo dhax saaray waa dareemi kartaa qof walba markuu wanaag leeyahay waxa wanaagsan in wanaagiisi aad qirato sharafta uu leeyahay waa dareemi kartaa qofkaasi sababta maanta intaas qof ay laga dhax soo saaray anagana waxa leenahay kullee wanaag bulshada maanta waxay u qabatay wayna xasan doonaan marka waxaan jecelahay haddii aan intaas ku dhaafo taariikhda kooban gabadhaas Allah u naxariistay iyo dhamaan inta ku dhimatayba imika waxaan jecelahay in aan daawadayash la wadaago wareysiga ugu dambeeyay hodannaale laga qabto waliba dhanka raadiyaha ayaan jecelahay wareysigaasi oo waxyaabo badan taaban doono nolosheeda sida markaasi barnaamijkan integration ay ku bilowday sida markaasi ugu tala gashay bulshada kale waxay doonayso inay la wadaagto maxay si rajaynaysay hadii maanta ay dhimato mise ay markaasi shaqadan ay ka fariisto maxay bulshada u qabanaysaa waxyaabahaas oo dhan barnaamijkan ayuu ku egyahay waxaan leeyahay daawadayaashu daabasho wacan aniga qurbo baan ku soo koray muddo badan baan joogay intaas oo dhan waxaan ka shaqaynayay backgroundkayga waxay tahay media 5 sano ka hor waxaan bilaabay barnaamijyo Soomaalida
isdhexgeliyo qurbada iyo dadka wadanka jooga waxaa la yidhahdaa integration TV isdhexgalka bulshada and so mashallah so intaas waayo YouTube-ka dadka dhan iga barteen waxaan leeyahay YouTube channel oo 50,000 subscribers ku jira about 6 million views ah and mashallah so Soomaalida oo dhan waxay rabaan wadankooda inay bartaan qurba jooga anigana dadkan ku tiraa qurbaha iyo dadka marka maxay kugu qaadatay abuuritaankaagii channelkan Integration TV iyo dabcan caqabado ma kala kulantay markaad abuureysay iyo ilaa hadda uu halkan soo gaaray dad badan ay ku taxan yihiin so TV-ga waxaan u bilaabay markaan Canada kusoo korayay waxaan fahmay maan aqoonin Soomaaliya dadka Soomaalida meeshaan ka imid saasaan kusoo koray markaan caruur dhalay baan fahmay haddii aniga caruurteeda waxaan baray gormay baranayaan markaasaan dad badan baa jira oo saasoo ah so markaasaan iska bilaabay waxaa idhi sababtay tahay caruurteeda inay wadankooda bartaan dadkooda afkooda and then inay ogaadaan Soomaalidu waa dad wanaagsan iyo wadankan ka dhimi waa wadan wanaagsan so anaa 30 sano qurbo joogay soo laabtay and intaasaan ku bilaabay showga hadda yarto waxaad ku sugan tahay gudaha dalka Garowe ayaa timid waxaad kaloo hadda joogtaa Jubbaland xamarna waa tagtay marar badan saasoo kale waad samaysaa socdaalkaaga wadanka waad kusoo laalaabato maxaad ka samaysaa barnaamijyo noocee baad hadda samaynaysaa hadda waxaan ku noolahay magaalada Kismaayo waan soo laabtay qodobka waan ka soo laabtay inta badan waxaan arkay hadda 16 magaalo oo Soomaaliya ku saabsan masha Allah wadanka waxaan jecelahay inaan arko magaalo walba dadka waa kala nooc sometimes dad kaliya nahay dhaqanka waa kala nooc luqadda waa kala nooc so meel walbaan tago waxaan barnaamijyo ka duubaa dadka isbartaan dadka Soomaaliyeed hadda 30 sano burburkii iyo wixii dhacay waa dad kala fogaaday isdhexgalka bulshada waa loo baahan yahay inay dadku ogaadaan walaalka oo xaggaa jooga iyo walaasheeda xaggaa joogta waa dad isku mid ah hadda marka qurbaha si toosaad usoo macaasalaamaysay oo macnaha wadanka degantahay magaalada Kismaayo ku noolahay masha Allah qorshahaaga muxuu yahay marka hadda barnaamijyadaadii waad sii wadaysaa dabcan hadda barnaamijyo badan baan soo wadaa oo ku saabsan barwaaqada wadanka Soomaaliya oo dhan hadday tahay caafimaadka wadankeena taalo hadday tahay waxbarashada dhalinyarada oo waxbartay just waxay ku saabsan tahay wadanka waxa wanaagsan insha Allah waxaan rabaa inaan adduunka dhan Soomaalida meel jooga inay bartaan wadankooda si fiican waxaan haysanaa wadanka ugu wanaagsan adduunka anagoo Soomaaliya ma arkayna waxaas maalin walba hadda markaan badda aado Kismaayo waxaa idhahdaa maasha Allah alxamdulilah ilaahay nimcada siiyey ma garanayno insha Allah barnaamijyadan soo gelin doono cuntada caafimaadka hawada ina dadkan tusno wadankeena haddii ka shaqeyno waa horumari karnaa intii aad ku jirtay barnaamijyadan aad sameynaysay Integration TV iyo showyada aad soo saaraysay wax caqabad ah oo aad kala kulantay ma jirtaa oo aad hadda nala wadaagi kartaa waxyaabihii aadan ilaawi karin wax kugu xasuusta badnaa aniga gabar baan ahay inta badan gabdhaha Soomaaliyeed waa taqaanaa media kuma jiraan in badan so challenge badan aniga la kulmay waxay tahay dad badan baa ku quureen cilmigaan leedahay iyo waxaad baratay iyo waxaad samaynaysay dad badan ma fahmayaan hadda waxaan sameeyo but insha Allah aniga waxaan rabaa taariikhdeeda in hadda maaha maybe markaan dhinto oo markaan weynaado oo dadka fahmaan maasha Allah maanta barnaamijyaan haynaa YouTube-ka ku jira oo wadankeena qurux badan yahay oo wax wanaagsan laga daawanayo oo wax fiican laga sheegayo Google hadday sawiro wanaagsan laga hesho Integration TV video wanaagsan intaasaa muhiim ah dadka Soomaalida ma fahmaan wadankaaga haddaa caaysid qurun ka qoraysid hadda internetka waa village waa dadka dhan baa arki kara waxaas so waa inaan wanaag wadankeena ka sheegnaa challenge badan baan la kulmay kelmadda naag ka dhig aan la soo baxay waxay ku saabsan tahay challenge badan aan soo maray dad baa rabay inay sameeyaan markaan Soomaaliya iman jiray markaan gobollo kala tegi jiray dad baa ii didi jiray wax duubo qofka uma joojin waan wada barnaamijkayga ilaa iyo hadda wadankayga ku noolahay alxamdulilah so dadka waxaan u sheegayaa dhegeysanaya qofna joojina jooyinkaaga hor u socda dhexda fida waxbarta adduunka laga tegayaa maxaa ka tegaysaa waaye
aad inta badan markaad soo dhigto boostiyada hadday tahay Twitterka ama Facebooka social media oo dhan waxaad isticmaashaa hal ku dhig ama hashtag aad leedahay naagis ka dhig ereygaas bal tafaasiil ka bixiyo waxaad ula jeedaa naagis ka dhig ka dhig waxa waaye ereygan waxaan ka maqli jiray hooyaday waxay oran jirtay markay sideed gabdho bay dhashay maasha Allah markii wax noo dirayso kashira gala wax naagis ka dhiga walka dhaqa waxa aniga waxa u bedelay naagis ka dhig wax barto dhexda xido is adkee wax baro because gabdhihii Soomaaliyeed waani wiilasha waxa loo leeyahay wiil ka dhig wariyaa unaga noqo qof kornay gabadh Soomaaliyeed gabadhaha inay adkaadaan inay wax bartaan guri waa ka adkaa caruurtada waa ka adkaan kartaa ninkaaga maasha Allah ka dambeyn kartaa تعليمنا وبركاتها قف كواني قبلها الصومالي وحنا نشيله بدي الصومالي حتى أنت الصومالي وحنا بحني سديت ساعة أو ثلاث ساعات ما أنت كشيء كشيء ولا قلت لي ترى قبلي وين قولي وين الشقة يعني مهم وين قبلها الصوماليات وين الزعلان إني كيف كرات تعليم هذا هو وحبرتي عروسي وحبرتها هو وحبرتي عروسي وحبرتها إن شاء الله وحن جزائرنا إن برنامج أسمعنا طبق الصوماليات سيفكر كنوريجان نمش معها كسر نمش وشيء كحي عروض عندنا عروض محان إلى الدنيا محان كل بدنا ليه أذكريان إن شاء الله معك كديك وأنت صارت ده حد قبلها الصوماليات قدام بنتي سؤال شيء قدام بيسا محد تعيش هاي أو دحل نوعية بد تعيش أنا وقت كتو ومد الصوماليات وبريكا مارين لجوه حسوستو هذا تهينا بوجاج قرطو هذا تهينا دوكيومنتري دحل جره قرنية شري كرات سميسو مكوجو شري فكر نوع عاصة وبريكا كمان لقى دحل كره waxaan xasuustaa wixii qoran markaan barnaamijyada TV Canada ka bilaabay ummadda cadaanka dhan oo Canada ku nool ku jiray Soomaalidu waxay yihiin waxay bartaan dadka wanaagsan waxaan xasuustaa markii ugu horeysay aan Soomaaliya dadka ugu qoslayay Soomaaliya mataqaanid dadka Soomaaliya waxay ugu dhageysanayaan gabar qurbo ku soo kortay baa tahay markaasaan oran jiray maanta ma fahmaysaan waxaas aniga taariikhdeeda waxaan rabaa inay dadka fahmaan qof qurbo ku soo koray oo Soomaali ah waa Soomaali dadkaas waa dad nadiif ah dad wanaagsan hadda dadweynaha oo dhan wadankooda way rabaan inay yimaadaan kuwii wax bartayna cilmiga u keenaan wadankooda soo yaa soo dhaweynaya haddii qof walba Soomaali leeyahay Soomaali midkii Soomaali kuma hadashid yaa soo dhaweynaya soo taariikhda waxaa rabaa insha Allah in dadka ogaadaan dad badan oo qurbo ka yimid soo celinay oo cilmi leh wadankooda wax tari kara iyo dad wadanka ku nool oo raba inay wax bartaan oo horumaraan wadankooda insha Allah waa dadaalana hadda dad badan baa soo laabtay alxamdulillah marka ako YouTube-keeda dadka wareysiga ka qaadayo dad aan bulshada baray so maaha nolosheeda aniga waxaan ka fikirayaa caruurteeda markay weynaadaan inay dad wanaagsan ka arkaan TV-da wax wanaagsana soo gelino waana qarax iyo balaayo laga hadlayo Soomaalida iyo negative-ka waa inaan positive-ka badinaa inaan wadankeena wax wanaagsan ka sheegnaa inaan dadkeena wax wanaagsan ka sheegnaa nin walba wuu og yahay wuxuu yahay haddii aan caayano ismaynano Soomaali baan nahay aniga ismaynana wadankeena anaga ismaynana ma dhici kartaa marka ma kugu jirtaa qorshaha inaad tababar siiso sidaan u fakarayso kale si ay ugu fakaraan wariyaasha ka shaqeeya gudaha oo laga yaabo inaysan fursado badan u helin tababaro kor lagu qaadiyo tayadooda wax soo saar in loo sameeyo ma kugu jirtaa adiga qorshaha inaad ka qayb qaadato oo aad ka caawiso sidii ay tababarada aad qabto iyo aqoonta aad leedahay aad wax uga gaarsiin lahayd wariyaasha kale ee gudaha gabdhaha iyo wiilalba ha ahaadeen hadda barnaamijyo waana sameeyaa hadda intaas for volunteer baan ku sameeyaa Jubaland TV gabdho iyo wiilal badan hadda waxaan bilaabanaa tababarka wareysiga say u sameeyaan kamarada say u qabtaan maaha nolosha just adiga waxaa baratay qof kale a wax sii bartay baa ka wanaagsan so insha Allah waxaan rabnaa programmo wanaagsan gabdhaha Soomaaliyeed u sameyno Jubaland TV ku saabsan kasoo bixi doona iyo showgeedii oo weekdays-ka jimcaha umaanaya kasoo bixi doona bisha lixda ah so insha Allah waa dadaaleyna tacliinta waa inaad qof kale u kufisa adigana saasa wax usii baranaysaa waa guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa
warbixinadii ama wareysigan markaasi diradda ku saareen la u naxariistay Hodan Naale markaasi kamid ah gabar saxafiyada oo dhalashada dalka Kanada haysta oo kamid ah dadkii ku waxyeeloobay weerarkii cusla ama weerarkii xishmada ee ka dhacay Hotel X Medina ee magaalada Kismaayo waxaan leenahay inta ku dhimatana Allah u naxariisto inta xanuunsan Allah caafiyo inta dhibaato ka soo gaartay waxaan leenahay Allah dhibaatadaasi ka dulqaado intaan muuqaalkan mid lamid aan ku kulmi doono waxay ku dhaafay sidaas. Wassalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.